بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهدسك تبارك وتعالى إنوافتشي خير بدن وإلى أن هيسنه شر بدن إلهي نقرب مريه تبارك وتعالى يا مهدي يا أمان دمانت إسكاله. كلمة عن جعلهاي إن أن kaga qayb qaato ma aan ku tilmaamo dhibaato muddana soo jirtay waayahan dambana aada muddo inay soo kordhayso oo haysata mujtamaca Soomaaliyeed deegaamadiisa kala gedisan. Arrintaasi waxa weeye waa arrinta la yidhaahdo jariimada kufsiga ama iqtisaabka iyo boobka dumarka la boobo, xoog lagaga zinaysto, dhibaato loo geysto. arrintaas iyo shareecadeenna qiimaha badan iyo diinteenna waxay ka qabto ayaan jeclahay inaan kelimaad kooban ka idhaahdo. maxaa yeelay iyada oo ay fara badan tahay runtii khaladaadka iyo dembiyada iyo jaraa'imta la galayo, ayay haddana qaarkood sii foolxun yihiin oo ay sii culus yihiin oo ay sii daran yihiin. haddaba in dumarka la kufsado oo xoog lagu kufsadaayey waa mas'alo ka mid ah ama arrin ka mida dembiyada waaweyn ee ilaahay uu xarimay tabaaraka wa tacaala. maxaa yeelay waxay ka hor imaanaysaa maqaasidda waaweyn ee shareecada mid ka mida ayay duminaysaa oo halis ku tahay, ama mid ka badanba. waxaa ka mida maqaasidda waaweyn maqsadka la yidhaahdo xifdu alcird, in sharafka la xifdiyo. sharafka oo la xifdiyo wuxuu sabab u yahay in taranka la xifdiyo, waana mabda' ka mida mabaadi'da shanta ee waaweyn ee sharaa'icda ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala dhammaanteed ay ilaalisay. sidaas daraaddeed kufsigu waa zino. zinadu way sii kala daran tahaye midda labada ruux ee xumaanta samaynaya ay raalli isaga yihiin, iyadoo faaxisho dembi weyn ah, haddana waxaa ka sii culus markii ruuxa la qasbo oo xoog lagaga sinaysto ama la kufsado. maxaa yeelay markaa labada dhinac faaxishadii iyo dembigiina waa dhacay, waxaase dheer qaabka uu u dhacay oo inantan ama gabadhan ama haweentan la kufsaday way dulman tahay. arrintaasi marka waxa weeyaan waa dembi labanlaaban, waana dhaqan gaalo weeye. sida qaalibkaa dadka mu'miniinta laguma yaqaano, maxaa yeelay sida asalka ruuxa muslimka ah cawradiisana waa qariyaa, dadka muslimka ana cawradooda waa asturaa oo xishood baa asal u ah. khaasatan wuxuu u danqadaa oo ka danqadaa gabdhaha iyo hablaha iyo dumarka muslimaadka ah ayuu cirdigooda iyo sharafkooda ka danqadaa oo ka dagaalama oo u ilaaliyaa ruuxa mu'minka ah. iimaankii ayaa meesha dhaawac soo gaadhayaayoo ruuxu markuu xumaanta samaynayo iimaankii ayaa ka maqan, sida nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi uu xadiiska ku tilmaamayo: laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min. xilliga uu ruuxu xumaanta iyo faaxishadaas samaynayo iimaankii ma laha. bimacnaa hadduu iimaankii joogo wuu xakamayn lahaayoo xumaanta waa ka celin lahaa, laakiin waxay tilmaamaysaa dhacdadaasi inay dadkaasi anshixii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo iimaankiiba ka maqan yahay. xaaladda iyada abuu xadiiska nabigeenu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. sidaas daraaddeed arrintaasi waa faaxisha iyo dembi aada u foolxun,
caqli sharci iyo dhaqan intaba ku foolxun weeye shareecaduna meel adag bay ka istaagtay oo diinteenna ilaan asal waxa u ah diinteenna akhlaaqda iyo anshaxa wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo cadaaladda iyo dhowrsoonaanta iyo aadamahu xuquuqdiisa la ilaaliyo iyo ammaanka iyo muxuu ah nabadgelyo deganaanshahoo la dhowro ayaa asal u ah diinteenna qiimaha badan. haddaba qaababka ay shareecadu arrintaa uga jawaabtay runtii ay mowqif adag uga istaagtay waxaa ka mid ah xad adag bay ka dejisay oo raadic ah oo dadka waxyaalahaasi ama hunguriyeynaya ama dhaqankoodu inxiraafay waxyaalaha noocaasa inay ku kacaan doonaya wax zajriya oo hor istaaga oo caabiya oo xad ah ayay shareecadu u samaysay. laba xaalay culimmadu u kala qaadaan arrinta kufsiga dumarka la kufsado. midi wax weeyaan inuu ninku ama raggu ay kufsadaan dumarka iyagoo marka aan hub isticmaalin oo aan hubu yacni wax weeyaan hubku noocu dooni ha ahaado saan u tegi doono. haddii uun muxuu ahaayey xoog kaliya si kale ay iyagoon xoog yacni aan hub u isticmaalin marka ay ku kufsadaan. mas'aladaasi culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa waajibaya xadka zinada ee shareecada u dejisay. gabadhana waxaa u laasimaya dhibaatadii gaadhay in laga xaalmariyo oo meher bay yeelanaysaa sida ay qabaan alimaamu shaafici, imaamu maalik iyo alimaam axmed ibnu xambal. xanaabilada madhabka culimmadu u badan yihiin baa sidaasa. gabadhii dhibkii gaadhayna in laga xaalmariyo oo meher la siiyo, dhibkii la gaadhayna muxuu gaadhayna xuquuqdeeda la bixiyo. ninkii dhibkaa ku sameeyey ama rag badan hadday yihiinna markaasi xadka shareecada la mariyo oo haddii guur u horreeyeyna dhagax lagu dilo, haddii uusan guur u horreyninna 100 jeedal in markaa lagu dhufto, raggiina in halkaa la mariyo, miskiintan la qasbay ee la kufsadayna in markaasi sidaa loo xalmariyo. waa haddii falkaasi aan hub loo isticmaalin oo aan hadidaad iyo cagajuglayn iyo hub iyo haddaan loo isticmaalin xukunku sidaasuu noqonaya. haddiise kufsiga loo isticmaalay hub loo isticmaalo oo maalan waxa weeyaan xooggaasi uu la socday in hub loogu cagajugleeyo, hubkaasi siday culimmadu u badan yihiin xataa ul ha noqdo, xataa dhagax ha noqdo, sida uu qabo imaamu shaafici, maalik, xanaabilada, abu yuusuf iyo abu thawr iyo ibnu xasmi. culimo badani siday qabaan waxay leeyihiin xaaladaasi markaa zina way ka koraysaa oo keliyata kufsi uun la zinaystay ma ahee markaa waxay noqonaysaa masalada la yidhaahdo xiraabada. xiraabadana waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu amniga khalkhal geliyo, jidgooyo sameeyo, uu noqdo ruux mujtamacii iyo deganaanshihii iyo nabaddiisii iyo isu socodkiisii iyo xoolihiisii iyo khatar geliya. kaasuu markaa noqonayaa gaar ahaan marka uu muxuu ahaayey dhaawac iyo dhib la yimaado. arrintaasi marka waxa way ka gedisan tahayoo waxay markaa gelaysaa aayadda qur-aankee alla yidhi tabaaraka wa tacaala innamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard dalika lahum khizyun fi ddunyaa walahum fi alaakhirati cadaabun cadiim. xiraabaa la yidhaahdaayo waa dadka jidgooyada sameeya, waa dadka booba, waa dadka muxuu ahaayey nabadgelyadii amniga khalkhal geliya, waa dadka xoog iyo hubka dumarka ku kufsada. dadka noocaasoo kale ama magaalo gudaheeda ha ku jireen ama bannaanka ha uga baxsanaadeene kuwaasi muxaaribiin baa la yidhaahdaaye xukumkii zinada xukum ka khatarsan bay leeyihiin oo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kuwaasi abaalkoodu waxa weeyaan horta waxaa laga dhigay ilaah iyo rasuulkiisay horta la dagaalamayaan. li'anna waxa weeyaan tacaaliimtii diinta ilaahay soo dejiyeyna dagaal bay ku sameeyeen, ummaddii tacaaliimtaa haysatay oo muslimka ahaydna dagaal bay ku sameeyeen. sidaas daraaddeed allah iyo rasuulkiisay la dagaalameen, dhulkana fasaad bay ka shaqaynayaan
oo gabdhihii sharafta lahaa iyo hablihii qiimaha lahaa iyo xoolihii iyo nabadgeliyadii iyo naftii bay khatar ku hayaan. sidaas daraaddeed dhulkiina fasaad bay ka shaqaynayaan oo wadaan. dadka noocaas oo kale ah alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaalaa abaalkoodu waa in la laayo, in la deldelo, in la googooyo gacmahoodiiyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo, in muxuu ahay dhulka laga masaafuriyo oo la nafiyo. taasi waa abaalka ay adduunka ku leeyihiin, aakharana cadaabu weyn bay leeyihiin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaalaa. sidaas daraaddeed wadaadada qaarkood waxaa isaga khaldama sino laba ruuxoo raalli isagaa ay sameeyeen waa dembi culus. waa mid in muxuu ahaayey loos isticmaalo iyadoon hub iyo xoog iyo la isticmaalin haweentii la qabsado. masaladaasi waa masalo kale. in dumarkii xoog loo isticmaalo, hub loo isticmaalo, tooriyo loo qaato, hub loo qaato, sidaa lagu kufsadaayey isku mid maaha. masaa-ishaasi way kala culus tahay, wayna kala xugum gedisan tahay. masaladaa dambe inay sidaas tahayna a'imo badan baa qaba oo xiraabo inay hoos tegayso masaladaasi. abaalkooduna uu sidaa yahay in la laayo, in la deldelo, in gacmaha iyo lugaha si isdhaafa loo jaro. arrintaasi kolba tii axkaamta iyada ah dhibkani ku joogsanaya maslaxada u muuqato in la qaato oo la mariyo. taa ayaa waxay tahay qolyahaasi xugumkooda. waana sida ay ku imaanayso fatwada hay-ada culimada u sarreysa sacuudiga, almamlaka alcarabiya sacuudiya, oo uu ra-iis iyo madax u ahaa asheykhu alcallaama alimaam ibnu baaz caleyh raxmatullah. sidanoo kaleeto ayay arrinta go-aan uga soo saareen. waxay yidhaahdeen jaraa-imta khadfiga iyo sadwiga, yacni wax weeyaan dafidda dumarka la dafayo, boobka la boobayo, xoogga lagu kufsanayo, la qasbayo, waxay ka mid tahay min duruubi almuxaaraba. ilaahay rasuulkiisa oo lala dagaalamay bay ka mid tahay. wasacyi fi l ardi fasaadan, dhulkoo fasaad laga shaqeeyay dhexdiisay ka mid tahay, oo mudan markaa cuquubada ay aayaddaasi sheegtay aan soo akhrinay, oo nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo jidka iyo dadkiioo la cabsi geliyo. arrintaasina waxay leeyihiin farqi ma leh hadday magaalo ka dhacdo, hadday tuulo ka dhacdo, hadday baadiye ka dhacdo, hadday isku mid weyn bay leeyihiin. sida xooga badan aaraada culimmadu ay mas'alada ka qabaan. bimacnaa wuxuu ka wadaa, waxay ka wadaan waa masalo fiqiyaho. culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen marka xukunkaa la siinaya xiraabada waa inay ka dhacdo baadiye iyo jidadka cidladaa iyo meelaha ay ka dhacdo wey. qaar baa shardigaa ka dhigay, laakiin shardigaasi sida raajixa ah shardi ma aha. xataa hadday ka kacaan magaalada dhexdeeda kooxa noocaasa sida kuwii faycali la dhihi jiray iyo kuwa meelahan hadda annagoo noo joogoo la yidhaahdo muxuu ahay nairobi nala joogoo suberpower la yidhaahda iyo kuwaasi gabdhaha magaalooyinka ku kufsanaya ama xoolaha xoogga ku qaadanaya iyo qolyahaasi magaalaha ka dhacday magaaliyo baadiye ma kala leh. cumuumka aayadana saasaa laga fahmayaa oo aayaddu ma kala qaadin magaalo iyo baadiye ma kala qaadin. bal marka qaarkood say culimmaduna waxaa laga yaabaa dhibaatada magaalada markii lagu sameeyo arrinta dhibaatadu inayba kasii darnaato. sidaas waxaa qaba magaalo iyo inaan baadiye la kala qaadaynin alimaamu shaafici. xanaabilada sidoo kale abu thawr, waxaa sidoo kale maray awsaaci iyo leyth iyo maalikiyadii daahiriyada madaahibta culimmadu u badan yihiin madhabkaas weeye. marka magaalay ka dhacday iyo baadiyay ka dhacday ictibaar ma leh. koox guruub ah oo hubaysan oo gabdhaha kufsanaya oo dadka dhacaya oo amniga khalkhal gelinaya, kuwaasi waa muxaaribiin way. xiraabada xukunkeeda ayay leeyihiin. sidaasi ayaa culimmadu ayay fatwaanayaan. masaladana saasay u xoog badan tahay. xukunka adag ee dilka ee daldalka ee gacmaha iyo lugaha hala jara ah, shareecadu waxay u qaadatay weliba lagu bilaabay inuu ruuxaasi abtirkiisii islaamka xataa laga qaado oo la yidhaahdo ilaahay rasuulkiisuba la dagaalamayba la yidhaahdaayey. heerkaa waxaa loo gaadhsiinaya jariimada iyo dembiga culus. arrintaa culayskeeda leh waa arrin fool xun, waa arrin runtii yaqsi leh, waa arrin aan runtii waxwey loo gegsan karaynin. inay mujtamac muslima dhexdiisa ku soo noqnoqotana waxay tilmaamaysaa fasaad iyo khalad weyn oo ka jira mujtamaca dhexdiisay tilmaamaysaa. arrintaa markaan intaa kaga gudbo, waxaa xiga oo iyadana qodob kaloo inaan tilmaano mudan, maxaarimta muslimiinta iyo sharafkooda iyo gabdhahooda iyo dumarkooda iyo cirdigooda in loo qiiroodo oo laga masayro
oo laga dagaalamo oo laga muxuu ahay xumaado runtii waxay waajib sharciya wey waajib sharci ah wey masalada iyada ah cid kasta oo awood lana inay tilaabo ka qaado ciddii aan awood lahaynna ugu yaraan inay qalbiga ka nacdo oo ka gubato waa waajib sharciya wey nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka saxiixulbukhaari ku sugan min xadiidi almugiira sacd ibni cubaada radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu yidhi low ra'aytu rajulan maca imra'ati la darabtu bisayfi hayra musafax aw musafix yacni haddaan ku arki lahaa xaaskayga oo nin haysto oo nin isticmaalayo seef baan ku dhufan lahaa buu yidhi weliba dhinac uguma dhufteene seefta afkeedaan ku dhufan lahaayoo madaxaan u dheerayn lahaa waa nebiga hortii sidaa ka yidhi sal alay slm sidaasuu yidhi markaase arrinkaasi nebiga soo gaadhay sal alay slm rasuulilaahi ma maqashay hee ninkii la dhihi jiray sacad ibnu cubaada wuxuu leeyahay haddaan xaaskayga nin ku arko qoortaan u casaynaya ma noolaynaya ninkaasi markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam tacjabuuna min hayrati sacdin ma waxaad la yaabteen masayrka iyo ficilada sacad miyaad la yaabteen wallaahi la ana akhyaru minhu anaa ka masayr badan oo ka ficilo badan wallaahu akhyaru minii allana waa iga ficilla badan yahy anuu iga ficilla badan yahy wamin ajli hayrati illaahi xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan alle tabaaraka wa tacaala ficillo uu ka ficiloonayo arrinta noocaasoo kale buu alle tabaaraka wa tacaala arrintaa darteed buu wuxuu u xarimay fawaaxishta dembiyada foosha xun wixii qarsooniya ka muuqdaba marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayradii iyo ficiladii ku bixisay sacad inuu yidhaahdo ninkii reerkayga aan ku arko waan dilayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayradaa iyadaa waa ammaanay ficiladaa wuu ammaanay masayrka noocaasa wuu ammaanay leanna ruuxu inuu ehelkiisa iyo gabdhihiisa iyo dumarkiisa iyo kuwa muslimiintaba ka qiiroodo waa mas'alo salka ku haysa iimaanka salka ku haysa wey waxaa kaloo muslim iyo bukhaari ay soo saareen xadiidka cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma rasuulku wuxu uhi sal lla alay wasalam halaatatun laa yanduru allahu caza wajalla ilayhim yowma alqiyaamah saddex ruux maalinta qiyaamada ilaahay ma fiiriyo il naxariiseed kuma dayo saddexdaa waxaa ka mid ah alcaaqu waalidayhi ruuxa labadiisa waalid caaqa ku ah oo labadiisa waalid aan baariga u ahayn waxaa ka mid a waalmar'atu almutarajila haweenayda ragga isu ekeysiisa oo dhaqanka ragga iska raaraadisa oo lebiska ragga xidhata haweentaasi ragga ninninka iska dhigaysana iyaduna waa talabaad ka saddexaadee waddayuuth waa ruuxa dayuuthka waay dayuuthku yuu yahay xadiid kalaa fasirayo wuxuu yidhi alladii laa yubaali man dakhala calaa ahlihi ama ninka raalliga u ah ehelkiisa iyo dadkiisa iyo dumarkiisa xumaanta raalliga uga ah yacni wax weeyaan xumaanta iyo faaxishada iyo zinada iyo dhaqan xumada ruuxa raalliga ka ah oo reerkiisa iyo ehelkiisa raalliga uga ah kaa ilaahay tabaaraka wa tacaala isagana maalinta qiyaamada il naxariiseed kuma dayo marka in laga xumaado laga qiiroodo laga ooyo laga xumaado qalbigu ka gubto dadka muslimiinta xumaanta noocaasoo kaleoo soo yeedhaysa oo deegaamadii muslimiinta ka dhacaysay arrintaasi waa arrin runtii loo baahan yahay waana arrin ku tusaysa runtii dadnimo fara badan iyo wanaag fara badan inuu ummadda ku jiro ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo siyaadiye waxaa xigto iyadana mudan runtii inaan wax ka tilmaanno ruuxa noocaasa ee xumaanta noocaasa ku kacaya xadda uu leeyahay iyo xukumka uu leeyahay iyo ciqaabta uu leeyahay diinta ku leeyahay waan soo tilmaannay arrintaana waa arrin loo baahan yahay inay dadka madaxda iyo maamulada meesha ka taliyay inay isu taagaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xukumkiisa ay fuliyaan iyagana looga dambeeyo arrinta noocaas oo kalea inay ku tillaabsadaan oo markay xaqiijiyaan sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala inay la tiigsadaan dadka noocaasa si mushkilada loo soo afjaro oo ceebtani ay u afjaranto oo dumarkan akhyaarta ahee muxuu ahaayey ee qiimaha mudan ee sharafkooda lagu ciyaarayo si loo soo afjaro waa in xukumka ay fuliyaan hadday fulin waayaan oo arrinkaasi madaxda iyo maamuladu ay ka baaqsadaan waxay leeyihiin sida sheekhulislaam ibnu taymiya culimo kale waxay leeyihiin ciddii markaa awood leh ee fulin karaysa ayaa markaa fulinaysa waase sharti haddaynan ka dhalanaynin mafsado iyo dhibaato kale oo ka weyn haddayna ka dhalanaynin oo laga baaqsan karo ciddii kale awood lehee muslimiinta ka mid a ayaa fulinaysa haddii qabaa'isha deegaankaa degaayay ay isku waafaqaan
ninkii ay ku caddaato inuu xumaanta noocaasa ku kacay ayaga dhexdoodu inay ku ogaan shareecada ku ogaan ooy soo qabtaan oon loo hiilinin oon gadaal la marsanin oo inta la soo dhiibo xadka shareecada uu leeyahay la mariyo koox noocaasa oo ka shaqeeya waxaasoo jidka istaago oo magaalooyinka ku jiro oo dhaqamada noocaasa ku jira dadka deegaanka hadday isku waafaqaan oo isku raacaan dadkaasi xag xukunka shareecada in la mariyo markaana awooddoodii ay leeyihiin way fulaysaa waana sax haddii uu ninkii lahaa xukunkan inuu fuliyo maamulka ah ka gaabsado dadku ayagu waa fulin karaan laakiin yaa waaye waa marka aynan ka dhalanaynin dhibaato kale oo la xakamayn karo arrinta la xakamayn karayo ama dadkii meesha deganaaba isku waafaqsan yihiin oo dhib kaleeto uusan ka imaanaynin marka waa la fulin karayaa oo muxuu ahaay waa loo istaagi karayaa siday culimmadu tilmaamayaan waxaan doonayaa intaa kadib inaan ku daro walaalayaal oo aan raaciyo hadalkaas arrinta noocaasoo kale ah ee aadka u foosho xun ee meelo badan ka dhacaysa ee warbaahintu soo gudbinayso ee deegaamo kala gedisan ka dhacayso soomaalidu ay degto arrinta noocaasi shaki ma laha soo afjariddeedu waxay u baahan tahay iyada iyo dhibaatooyin kale oo badanoo ina haystaba waxaynu u baahannahay in aynu xal rasmiya u helo su-aashu waxayse tahay see loo xallin karaa ma xeer dhaqan baa lagu xallin karaa ma xeer jajab baa lagu xallin karaa ma xugum gaalo laga soo ergistoo laga soo qaatay baa xallin kara maya ma xallin karayo waxa xallin karaay kow waa qodobadan soo socda inaynu qaadanno mushkiladan inay soo afjaranto midda koowaadii waxa weeyaan ummaddu inay diinteeda u noqoto oo diinteennii aan dabaqno oo aan waxyaalaha noocan oo kale ah ilaahay baa daaweeyoo xalliyoo afjaree alle tabaaraka wa tacaala inaan diinkiisii ula laabannoon u celinno waxaana kow ka ah oo xal noqon karaya marka horeba dhacitaankeeda in laga taxadaro waxayna ku imaan kartaa da'yarta iyo dhallinyarada in lagu tarbiyeeyo cifada dhowrsoonaanta xumaanta laga tarbiyeeyo xadgudubka laga tarbiyeeyo jaraa'imta iyo dunuubtan iyo gaangisnimada laga tarbiyeeyo carruurta in lagu tarbiyeeyo wiilal iyo gabdhaba in ay cifada iyo xishoodka iyo dhowrsoonaanta iyo in lagu tarbiyeeyo si ay muxuu ahaayey ay uga badbaadaan xumaanta noocan oo kalea gabdhihiina uga badbaadaan wiilashiina ay uga badbaadaan da'yarta oo la tarbiyeeyo waa qodob marka horeba noqon karaya taxadar iyo ka hortag noqon karaya waxaa labeeya dhacdooyinka noocan oo kale ah markay dhacaan in shareecada lala tiigsado oo laga daayo xeer jajabka laga daayo odayaynta laga daayo ergada laga daayo ee garab istaagga laga daayo in shareecada lala tiigsadoo la yidhaahdo ilaahay diinkiisu muxuu qabaa haddii kii wax dile la dili lahaa oo kii sinaystaayey la jeedli lahaa oo kii sidaasoo kale gabdhaha xoog ku kuftooda hoob u isticmaalayay dadka inta la hor keeno qoorta loo casayn lahaa oo qaar inta la soo qaqabto gacmaha iyo lugaha laga jarjari lahaa arrintu waa dhammaan lahayd ninna dhiiggiisa kama tillaabsado laakiin ninka mujrimkaee dembiilaha ee wax qarribaya ee wax dilahaya ee wax kufsanaya ee wax dhacaya markuu og yahay inuu fakan doono oo odaykiisaoo kaabaqabiila garab istaagi doono oo reerkiisa uu gadaal ka mari doono ama uu baxsan doonoba hadduu og yahay ama isagooba nabad qabo magaalada berri iska tamashlayn doono adeer waxa weeyaan nin walba wuu samayn nin kastoo safiiha oo diinlaawo ah oo caqlilaawo ah oo khamriyo cab ah oo daroogaysta ah oo aan diin iyo akhlaaq midna lahayn adeer jidkaa u furan markaas wuxuu doonuuna samaynayaa leanna wuxuu og yahay berri inuu badbaadayo laakiin hadduu og yahay inuusan badbaadaynin ninna dhiiggiisa kama tillaabsado macnahana waa macnaha rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka ku tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab war kuwa caqliga lahow war kuwa wax garanayow war kuwa kaska lahow qisaasta waxaa idinku sugan dhexdeeda nolol baa idinku sugan qisaasta waxa weeyaan ruuxii wax dilay in la dilo intuu dadka mariyey in la mariyo nolol baa idinku sugan asagii tag mujrimka ahaa laakiin intii ka dambaysay baa noolaanays arrintii baa daawo loo helayaa
khalaa'iq fara badan oo la layn lahaabaa sidaa ku badbaadaysa. marka wax weeye ka wax dilay dila, ka wax kufsaday ee xoogga ku kufsaday khaarijiya, midka muxuu ahay xoolaha dhacaya soo qabto gacmihiisa lugaha jara. sidaasi marka la yidhaahdo arladu aamin bay noqonaysaa, gabadh la kufsan maayo, karaamiya sharaf lagu xadgudbi maayo, dilku waa dhammaanayaa, dhiiggan daadanahaya ee qubanaya waa soo afjarmayaa. ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala waa xalka rasmiga waay, waana midka laynoo diidan yahay waay. ruux hadduu og yahay in jidkaa la marinayo marnaba ku dhiiran maayo. maslaxada labaad ee ku jirtaay waxay tahay ruuxan dembiga galee wasakhaysan ilaahay agtiisana ka fogaaday, marka xadkaa la mariyo oo sidaa loo ciqaabo isagana dembi dhaaf bay u tahay. nabigeennu waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi alxuduudu kafaaraat. ruuxa marka xadka shareecada la mariyo dembi dhaaf bay u tahay. waa la dilo aakharuu aaday, xad baa lagu dilay sharci ah, waa loo dembi dhaafi isagiina waa la daahirin, mujtamaciina waa laga daahiriyey. man axsanu min allahi ilaahay tabaaraka wa tacaala walalayaal yaa ka xugum fiican, yaa ka cadaalad fiican, yaa ka daawo fiican rabbi tabaaraka wa tacaala. saas daraaddeed xalku waa in diinta rabbi loo noqdo tabaaraka wa tacaala, arrimaha noocan oo kaleetana loo celiyo ilaahay sharcigiisa tabaaraka wa tacaala iyo wixii uu ka dejiyey. qodobka saddexaanan doonayo inaan tilmaamayo waxa weeye arrimaha noocan oo kale iyo dulmiga socda ee dadka ka dhex socda, ee dumarka iyo dadka masaakiinta tabarta yar ku dhacaya, ee muxuu ahaayey dhiigga daadanaya. waxaan kadaata markii uu dhaco waa in aan ruuxa daalimka ah aan la isgarab taagin. qabiilka isgarab taagaya, odayga ugdoodaya, midka u tafaxaydan, midka doonaya inuu fakado, midka u xamaasaysan, midka u ficilaysan, waa isagoo kale way daalim waay. waa dhiirigelin, xumaantii uu galay baa la dhiirigelinayaa. arrinta dadka noocaasoo kalena waa mudan yihiin inay ilaahay cadhadiisu ku dhacdo. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdillaahi bni cumar waa xadiis saxiixa weeye, ayaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam man acaana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin lam yazal fii sakhati illaahi xataa yanzic. ruuxii arrin dad isku haysto dulmi ku garab istaaga ruuxii gardarnaa, ama ma ahee mid daalim ah oo gardaran u hiiliya oo u kaalmeeya oo dulmigii ugu kaalmeeya, ilaahay cadhadiisa ka zuuli maayo inuu ku dhex sugan yahay ilaa uu arrintaa ka dhex baxo, ilaa uu daayo cadho ilaahay buu ku jiraa, cadha la saaxiibtay. marka waxa weye daalimka ha garab siinin. cadaaladdu waxa weeyaan sidii nabigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh unsur akhaaka daaliman aw madluuma. kan laga gardaran yahay dhibka loo geystay ha laysgarab taago oo ha loo hiiliyo, kan dhibka geystayna isagana ha loo hiiliyo. ka dhibka geystay hiiladiisu waxa weeyaan xumaanta in laga qabto, isagana taasaa hiilo u ah. kan dhibka loo geystayna hiiladiisu in laysgarab taago, madlimadiisiiyo yani wixii ka maqnaayo xuquuqdiisi in loo soo dhiciyo. laakiin haddaad yani waan wada dhalannay, waan isxignaa, isku reer baan nahay, deegaan baan ka soo wada jeednaa, haddaad dhinac gadaal intaad u marsanto u dagaalanto daalim baa tahay, cadho ilaahay baa kugu dhici tabaaraka wa tacaala. ummadda noocaasoo kalea marka ma liibaanto, qabaa'isha noocaasoo kalea ma liibaanaan, deegaamada noocaasoo kalea balaayaa ku habsata, waana tan in badan ina haysata maanta wey. waxaa qodob afraadoon doonayaa inaan ka diga iyadana odayaasha ka ergeynaya ilaahay xuduuddiisa tabaaraka wa tacaala. siday u badan tahay wiil yaroo safiiha ama oday iska safiiha ayaa wuxuu ku dhacayaa khalad buu gelayaa, ummad buu khalad ka gelayaa, dhiig buu daadinayaa, gabdhihii karaamada lahaa buu kufsanayaa, xumaan buu samaynayaa. oday ordahaya oo duub wata oo go-shaala wata oo odaygiis iyo ugaaskii suldaankii reerkaan ahay leh baa soo fadhiisanahayo u shafeecayo erka ka gelaya. daalim weeye kaasina. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrintaa iyadaa aad buu uga digay. caaisha radiallahu tacaala canhuma waxay leedahay reerkii quraysh la dhihi jiray nebigeennu ka dhashay sal alla alay wasalam ayaa waxaa murug gelisay, aada uga murgeen gabadh haweeney reerkaa ka dhalatay oo makhsuumiyad ah oo xadday, xatooyay samaysay, waana gabadh reerkaa quraysha ka soo jeedo. gabadhii in gacmaha laga gooyay noqotay, ilaa nebiga sal ly slm maxkamaddii bay arrintu timide. reerkii quraysheed waxaa culays ku noqotay, ma gabadh reerka ah ayaa maanta tuugnimo gacanta looga goyni? war arrintaa nebiga aynu la hadalno ka erga ka gallo, ha laga ergeeyo
markaasaa waxaa la yidhi oo yaa nebiga kala hadli karaa arrintaa iyada rag baa soo booda waxay yidhahdeen cid kaloo ku dhiiran karta ma jirto usaama mooyaane usaamata ibni zayd xibu rasuulillaah nebigu wiilkuu jeclaa ee mawlihiisa ahaa ninkaa unbaa ku dhiiran karo arrintaa nebiga la soo qaadi karo usaamaha loo diro usaamaa nebiga u tegay sal lla alay slm rasuulka ilaahi reerkii qureysheed gabadhan maqsuumiyadda ee gacanta laga goynayo waxoogaa aada uga murugsan yihiin bal arrintaasaan ka socda erge ka ahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa xanaaqay markaasaa wuxuu idhi usaamow atashfacu fii xaddin min xuduud illaah ma xad ilaahay xuduuddiisa ka midaad maanta erge ka tood ka ergeynaysaa miya markaasuu nebigu istaagay sal lla lay slm markiiba khud buu isla taagoo dadkuu la hadlay wuxuu yidhi innamaa ahlaka aladiina qablakum dadkii idinka horreeye waxaa halaagay ummadihii idinka horreeye waxaa halaagay waxay ahaayeen dhexdooda hadduu ruux sharaf lahoo magac leh uu dembi galoo waxdo way iska dayn jireen mid tabar yar oon reer ilaaliye cid difaacda aan lahayn isaguna isdifaaci karin oo tabar yar hadduu waxadana gacantay ka goyn jireen markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam wa aymullaah ilaahay baan ku dhaartay low anna faatimata binta muxamedin saraqad laqatactu yadaha gabadhayda faadumo cidi kama sharaf badna faatimata binti muxamed sal alla alay wasalam nebi maxamed baa dhalay reerka ay sheegayaanna wuu ka dhashay iyaduna way ka dhalatay reer bani haashim oo qoyska ugu karaamo badan oo ugu sharaf badan bay ka sii dhalatay haddana nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalamu caleyh waa faatima waa sayidatu nisaa'i ahlijanna jannada dumarka geli doona sayidadeedii waaye haweenaydaa iyadaabu gabadhiisiabuu nebigu mithaal usoo qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi hadday gabadhayda faaduma xadi lahayd xadi mayse laakiin haddiiba laga dhigoo laga soo qaado wa gacantaan goyn lahaa buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh odayaashan marka habhablaynahaye ergeynahaye fadaa'ixdan iyo xumooyinkan xumaatadan dhacaya sababta u ah inay sii jirto waxaan dhihi lahaa idinkana ilaahay ka baqa oo meelaan laga ergeynin ha ka ergeynina oo arrintan dadkii isu taagi lahaabaad tihiin siday u dhammaan lahayd wiilka xunee safiihee samaynayana sidii tilaabo looga qaadi lahaa dadkii laga sugayey baa tihiin ee dulmiga iyo fasaadkaasi dadkii garab istaagi lahaa ama ka ergeyn lahaa ma tihidin dadkii laga filayeyna ma tihidin arrintaa ilaahay uga baqa tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a qodobka shanaadoo inaan tilmaamo u baahan jaraa'imta noocaas oo kale soo noqnoqotay kufsiga dumarka khaasatan waxyaalahaas baaba sababo waxaa ka mid a dhallinyarada oo in badan oo ka mida maandooriyaha iyo draagiska ay ku jiraan qaar badan oo ka mid a waxaa sabab ugu noqda filimada khaldan ee ay daawanayaan janalada khaldan ee ay daawanayaan mathalan riwaayadaha khaldan ee ay daawanayaan goobaha baraha bini aadam isugu yimaado mujtamacu ku kulmo ee waxa noocaasoo kale jaraa'imta faafiyo oo ay daawanayaan wixii markay daawadaanna waxay leeyihiin aana baractis garayno aan markaasi dhaqan gelinoon samayno waa in marka dhallinyarada lagala dagaalamo waxyaalaha noocaas oo kalea draagiska lala dagaalamo maandooriyaha lala dagaalamo dhallinyarada waxyaalaha fasaadinaya jaraa'imta baraya in lala dagaalamo arrintaasina qayb bay xalka ka tahay waxaan doonayaa inaan laba kelimo ugu dambaysiiyo oo aan kelimadaydaasi ku soo khatimo kelimada koobaadii waxa weeye fawaaxishta dhacaysa iyo xumaanta dhacaysa oo ay ugu dambaysay dhacdadii foosha xumayd ee maalinta dhoweed gabdhaha lagu sameeyey ee wiilashu intay isugu tageen kufsadeen haddana mindiyaha iyo tooriyaha la dhaceen oo gabdhihii ay jeexjeexeen haddana muxuu ahaaye xumaantii noocaasoo kale haddana la faafiyey meelo badan oo kaleeto iyadoo kale ay ka dhacday haba ka sakhirnaato laakiin kufsigu meelo fara badan caan buu noqday oo mujtamaca soomaaligii u dego arrinta noocaasoo kale ah waxaan leeyahay markay dhacdaay jariimo weeye saan soo tilmaanay jid loo marana way leedahay qaab lagu xalliyana way leedahay laakiin waxaa khalad labaad oo khaladkii yacni waxa weeye sii saaran ah ama khalad lagu saxoo ka sii daran noqon karaya in arrintii iyada ahayd la geliyo ee social mediaha la geliyo sawirkii oo sidiisiiya in la soo qaado oo dadka dhexdooda lagu faafiyo isagoo video ah ama isaga oo sawir caadiya in lagu faafiyaayi waa ka qayb qaadasho faaxishadii xumaantii laga qayb qaadanayo arrintaasina arrin saxa ma aha asalka diinteennu waxay qabtaa xumaanii hadday dhacdo ha la asturo ruuxa geystay cuquubadiisa ha la mariyo laakiin xumaantii yaan mujtamaca dhexdiisa lagu wadwadin oo la faafinin arrintaasi arrin khaldan waay
saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu yidhi markuu ka hadlayey been abuurkii lagu sameeyey xaaskii nabigeenna sal alla alay wasalam caaisha aayaadkii uu kaga hadlayay rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa dhexdooda ku yimid aayadda rabbi leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi addunya waalaakhira dadka jecel inay xumaantu ay ku faafto mu'miniinta dhexdooda mujtamaca dhexdiisa dadka faafinaya jecel inay ku faafto kuwaasi cadaab xanuun badan bay adduuniya aakhiraba leeyihin kuwa faafinaya lama dhihin laakiin waxaa layidhi kuwa jecel inay ku faafto haddii kuwii jeclaayee qalbiga ka jeclaa layidhi cadaab adduuniya aakharay leeyihiin kii faafinaya ka warran alimaam alxaafid ibnu kathiir caleyh raxmatullah aayadda markuu fasiraya wuxuu leeyahay waa edbin saddexaadoo waxaa la edbinayaa dadkii muslimiinta waxaa la leeyahay ninkii hadal xun maqlay oo qalbigiisa uu ku dhacay oo isagu ku hadlay arrinkaa waxaa loo diidan yahay falaa yukhir minhu wayushiicuhu wayudiicuh arrinkii yuusan badininoo yuusan sii faafininoo yuusan yacni meelaha yuusan idaacaynin wixii inaad faafisood sii gudbisood meel walba geysaayey xal ma ah waa iyaduna waa dariiq khariban waa laanna waxa weye waxaa la rabaa xumaantu inay qarsoontaa la rabaaye in la baahiyo oo la faafiyaayey waa khalad ruuxa faafiyeyna khalad weyn buu galay haddii kuwii khaladka sameeyey ayagu ay soo geliyeenna waa jariimo kaleoo ka sii daran ficlan laakiin ayagu hadday geliyeen ruuxa sii faafiyo dadka u kala diray oo goobaha laysugu yimaada iyo mawaaqicda geliyey isaguna waa ka sii daran yahay hagaaji baa laga yaabaa inuu islaa iska niyad wanaagsanaa oo xumaantan muslimiintu ha ka qiiroodan islaa baa dhici karta laakiin qaabkaa loo tasarufay ma saxsana arrintaana waa in laga waantoomo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka axmed iyo keyrka ay soo saareen min xadiidi thawbaan ayaa rasuulku wuxuu ley sal lla lay slm laa tu'duu cibaad allah war ilaahay addoommadiisa ha dhibina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina walaa tatlubuu cawraatihim dadka mu'miniinta cawradooda iyo ceebtooda ha raaraadinina ha faafinina maxaa yeeley fa innahu man talaba cawrata akhiihi almuslim ruuxa muslimkaee walaalkii ah cawradiisa ruuxii raadiya ceebtiisa raarraadiyoo dabagalaayay talaba allaahu cawratahu ilaahay baa cawradiisa raadiya isagana cawradiisa waa la dabageli ceebtiisana waa la dabageli yaa dabagelaya allah tabaaraka wa tacaala xataa yafdaxahu fii beytihi ilaa uu gurigiisa ku fadeexeeyo ilaa gurigaaga ilaahay kugu fadeexeeyo meella ku baxsan mayse gurigaaga gudihiisa xataa lagugu fadeexaynaya saas daraaddeed ceebaha lama faafaafiyo xumaanta lama faafiyo yacni lama sii wadwado waa la qabtaa waa la asturaa kii waxaa laga hortagaa say ku dhici lahaydna waa laga hortagaa markay dhacdana waa la daaweeyaa sayna u soo noqoninna yacni cuquubaadkaasaa laga dejiyey laakiin wixii in la faafaafiyo la wadwado oo muxuu ahay meelaha loo gudbiyo oo laysu dirdiraayey arrintaasi walaalayaal ma ay saxsana iyadana ha laga waantoomo waxaa kaleeto iyadana khalad ah oo mudan in la baraarujiyo khaladku markuu dhaco koox yaroo dhallinyaraha sameeyaan yacni wax weeyaan mid baa sameeyey koox baa samaysay waxaa qalad ah in magaalo dhan loo tiiriyo oo la yidhaahdo magaalo heblaa ceebtaa gashay in qabiil dhan loo tiiriyo oo la yidhaahdo qabiil hebel baa khaladkaa galay yacni qabiilku cid walbuu leeyahy akhyaar baa ku jirta culimaa ku jirta dad qiimole baa ku jira dad anshaxle baa ku jira safiih baa ku jiro mid khariban lagama waayo reer walba lagama waayo allah tabaaraka wa tacaala wuxu uhi walaa tasiru waasiratun wisra ukhra naf dembaabtaye dembigeeda cid kale ma qaado cid walba dembigiisa isagaa iska leh sax haddii reerka iyo magaalada iyo deegaanku arrinta isku waafaqsan yahay ama isla qaataan ama daalimka waxaa sameeyey ay garab istaagaan markaa la xugun bay noqonayaan laakiin haddaynan jirin khalad ruux galay koox yari gashay in la camimo ummadda dusha laga saaraayey ama qabiil dusha laga saara ama magaalo ama deegaan dusha laga saaraayey arrintaasina waa jariimo kale ama dembi kale weeye in iyadana laga waantoomo weye sida ka muuqata baraha laysugu yimaado iyo dadka qaarkood qaabkay u hadlayaan iyo siday arrinta u cilaajinayaan ayaduna waxa weeyaan waa khaladkii oo khalad lagu saxay wey khalad lagu saxay weeye waa dhiigkaadii lagu dhaqay oo kale siday yidhahdaan culimmada ayuu la mid yahay waxaan ku gebagabaynayaa hadalkayga iyo kelimada aan ugu talagalay munaasabadda inaan ka idhaahdo
kelimo yaroon doonayo inaan u gudbiyo dadka dhibaatadaasi soo gaadhay ee walaalaha ah ee muslimiinta ah gabdhahaas iyo hablahaas walaalaheena ee dhibaatada loo geystay ee muxuu ahaay qoysaska iyo helada ay ka soo jeedaan iyo dhammaan in ay horey ugu dhacday iyo intay ku dhici doonto iyo intay haddaba haysato ayaan doonayaa inaan kelimo yar u idhaahdo kelimadaasi waxaan leeyahay marka koowaad horta ku dadaala insha allahu tacaala musiibada idinku dhacday ilaahay tabaaraka wa tacaala idinka kaba inaad ku sabirtaan oo aad ka digtoonaataan xadgudub inaad ka digtoonaataan daalim baa waxaan sameeyey daalimkuna jid la mariyuu leeyahay laakiin dulmiga dulmi laguma saxo khaladkana khalad laguma saxo waxaan ka wadaa in aysan dhicin in lagu xadgudbo ciddii khaladka gashay cid aan ahayn oo maalan waxaa dhacda mararkaasoo kale inuu ruuxu intuu inuu xanaaqana xaq buu u leeyahay inuu qiiroodo oo masayro xaq buu u leeyahay inuu ficlooda xaq buu u leeyahay inuu yacni dhibka dareemo oo ugla gubtaayo xaq buu u leeyahay laakiin ruux waa inuu isxakameeyo oo ayna dhicin inuusan dad kale ku xadgudbin oo uusan ugu xadgudbin calashaani way wada dhasheen waxaa dhacaysa mararkaasoo kaleeto ruuxu ay dhici karto inuu ruuxa khaladkaa sameeyey oo kaleeto ama aabbihii ama walaalkii ama qabiilka inuu ku xadgudbo dhibaato u geysto arrintaasina ma saxsana iyaduna waxa weye waa khalad kale khaladka waxaa iskale ruuxa khaladka galay iyo cidda garab taagan baa iskale laakiin ruux wuu la dhashay iyo wuu dhalay iyo kuma qaado dembigiisa kuma qaado cuquubana looguma geysto arrintaa iyada ah waxaan dhihi lahaa halayska jiro sabirkana ha la kaashado akhyaar siday soomaalidu yidhaahdo waxaysan foofsanin baa u soo hooyata ilaahay tabaaraka wa tacaala sabirkiisa kaashada qodobka labaadii wax weeyaan inaysan sabab u noqonin fitno iyo aafo dhiig daadisa iyo dhibaato iyo amnigu khalkhal gala iyo hadda hal gabadh iyo laba gabdhood iyo saddex baa laga hadlayaa in qarsoone in ay dhacdo fitno intaa ka badhlaaran oo inta ammaanku gacanta ka baxo oo qabaa'ishu isku fakadaan oo fitnadu ballaadhato kufsi intaa ka fara badan iyo dhiig daatana sabab ha u noqonina insha allahu tacaala maxaa yeelay shareecadeenna waxaa ka mida usuusheeda waxaa ka mida dhibaata markay dhacdo dhibka weyn laguma xalliyo bal usuusheeda waxaa ka mida irtikaafu akhafi dararayn laba dhib hadday isu kaa qabsadaan midka fudud baa la qaataa dhibaato ka weynna lagama dhaliyo taana insha allahu tacaala ka digtoonaada xiisadaha soomaalidu waa ummad iska xiiso oo xiisahaasi wax yar hadday kacaan kontaroolka ka lumo oo dhibaatada yacni wax in la xakameeyaa adkaato oo markii dhiig badan daato oo ammaanku gacanta ka baxo xoolo badan la baabi'iyo gabdho badan la kufsado oo markaa kadib baa laga yaabaa in la miyirsado marka waa ummaddaasi wax yarun u baahan waa baansiinkaa u baahan wax yaroo fatiila dab yar in la taabsiiyo arrintaasi marka waxaan dhihi lahaa iyadana inaad dareenkeeda yeelataan insha allahu tacala oo xaaladda idin haysataa ayna kalifin inay dhibaato ka weyn ka dhalato waxaa kaleetoon dhihi lahaa waxaa idinku filan sabirsiin insha allahu tacaala oo iyadana aad ogaanaysaan inaydan ilaahay agtiisa dembi ku lahayn gabadhiinna iyo muxuuha inanta sidaa lagu sameeyeyna inaysan ilaahay agtiisa dembi ku lahayn tabaaraka wa tacaala ceebna ayna lahayn bilijmaac siday culimmadu isla ogol yihiin ilaahay agtiisana dembi ku leh waa gabadh yaroo la qasbay weeye iyaduna raalli aan ka hayn bal diiday oo tooriya dhib lala dhacay marka wax weye ilaahay agtiisana eed kuma leh khalqiga agtiisana eed kuma leh cifadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo meel haba yaraatee wax dhiboo gaadhay ma jiro xagga alla tabaaraka wa tacaala marka la yidhaahdo bal rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay waman yukrihhunna fa ina allaha min bacdi ikraahihinna ghafuurun raxiim yacni wax weye hablaha markii la qasbo oo xumaanta iyo zinada lagu qasbaayey ilaahay waa naxariis badan yahayoo waa u dhaafayaa dembigooda waana u naxariisanayaa dembigoodana waa u dhaafaya sidoo kaleeto mujtamaca aad ku nooshihiine idinla jooga iyo ka dibadda jiraba sida muuqataay runtii waxa weeye sida arrinta looga caatifooday iyo sida looga xun yahay hablaha soomaaliyeed ee la kufsanayo ama cirdigooda iyo sharafkooda lagu xadgudbayo waa arrin runtii waxa weeye dareenka ay mujtamacu qaaday rag iyo dumarba qaar badan baa ka ooyaya qaar badan baa ka xun qaar badan baa gabay ka tirin qaar badan baa yacni waxa weeye dareenka runtii waxa weeyaan waxaas loo dareen qaaday si aan sahlanayn xumaanta noocaasoo kale in laga dareen qaadana meesha waa ku jirtaa marka mujtamacii muslimka ahaa walaalihiin ahaa meel walba inay dareenka idinla wadaagaan iyadana taasina waa muhim u baahan inaad insha allahu tacaala aad wax ku qaybsataan oo aad qalbigiina ku dejisaan insha allahu tacaala
gabadha nooca lagu sameeyeyna haddii la guursanayo haddii nin soo doono calafkooday leeyihiin gabadh xumaan samaysay oo zina ku kacday oo u qasaday oo raalli ku noqotay iyo ma isku mid maaha gabadh muslimadoo la qasbay oo xumaan lagu qasbay bal waxaa sharaf ah ayadoo oo diidan oo ooyeysa oo dagaalamaysa oo sharafkeediiyo cirdigeeda ilaashanaysa in xoog wax lagaga qaataayo waxay tilmaamaysaa yacni wax weeyaan waxay tilmaamaysaa sharaf iyo qiimo gabadhaa ku jira ayay tilmaamaysaa sidaas daraaddeed mustaqbalkeedana waxaan rajaynaya inuusan wax dhiba gaadhin ilaahay agtiisana insha allahu tacaala saas ay qur-aankuba tilmaamayo wax dhibayo yani wax weye ceeb iyo dembi iyo eetoona ma jirto sidaasi marka iyadana aad ku qalbi degtaan insha allahu tacaala arrintana jidkeeda la mariyo sida aan soo tilmaano sida ugu fudud oo shareecadeenna iyo diinteennu qabto in lagu cilaajiyo arrintaana sayna usoo noqnoqonin laga shaqeeyo oo mujtamacu wada istaago nidaamyada meesha ka dhisan odayaasha iyo cuqaasha waxgaradka ah culimada iyo culimaa udiinka aqoon-yahanka yacni ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta wujahada mujtamaca in laga hortago dhacdooyinka noocaasee soo noqnoqonaya deegaamada kala gedisan ee soomaalidu degtana ka imaanaya arrintaasi waa waajib sharciya oo walaalayaal ina saaran intaasi ayaan jeclahay inaan idinla wadaago waxyaalahan kadaata dhegtanada kusoo dhacdhacaya oo inta badan muxuu ahay ummaddu isdhex marinayso oo meelo badanoo deegaamadii ka midana ka dhacaya in aan runtii kelimada ka idhaahdo ayaa munaasib ila noqotay wixii qalada ilaahay baan tabaaraka watacaala weydiisanayna noo dhaafo wixii saxsanna ilaahay ajir naga siiyo akhiiranna waxaan leeyahay alla tabaaraka watacaala inta dhibaataysane jiran ee dhibka loo geystayna allaha caafiyo ilaahayna tabaaraka watacaala ummadda fitanka iyo dhibaatooyinka allaha tabaaraka watacaala ka dafciyo ha ka ilaaliyo oo ha ka xifdiyo ilaahay diinteenna haynoo xifdiyo ummadda dhiiggeeda allah u xifdiyo ammaankeeda iyo cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo hablaheeda iyo xoolahoodaba allah u xifdiyo iyo guryaheennaba ilmaheenna iyo da'yarteenna ilaahay fitanka iyo sharka allah inooga xifdiyo intaas iyo wabilaahi towfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرجع نبي صلوات ربي وسلام عليه وحناقي مركز أوحولي أسامو أتشفع في حد من حدود الله ما حد إلهي حدود ديس كم يضاد ما أنت إرجع كتوت كإرجيني سامية مركز النبي استاجي صلى الله عليه وسلم مركب خطبه إسلتها قدتك الله الله وحولي إنما أهلك الذين قبلكم ضدك يدنكور روحها هلاقي ummadihii idinka horreeya waxaa halaagay waxay ahaayeen dhexdooda hadduu ruux sharaf lahoo magac leh uu dembi galoo waxdo way iska dayn jireen mid tabar yar oon reer ilaaliye cid difaacda aan lahayn isaguna isdifaaci karin oo tabar yar hadduu waxadana gacantay ka goyn jireen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam wa aymullah ilaahay baan ku dhaartay low anna faatimata binta muxamedin saraqad laqatactu yadaha gabadhayda faadumo cidi kama sharaf badna faatimata binti muxamed sal alla alay wasalam nebi maxamed baa dhalay reerka ay sheegayaanna wuu ka dhashay iyaduna way ka dhalatay reer bani haashim oo qoyska ugu karaamo badan oo ugu sharaf badan bay kasii dhalatay haddana nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalamu caleyh waa faatima waa sayidatu nisaa'i ahlijanna jannada dumarka geli doona sayidadeedii waaye haweenayda iyadaabu gabadhiisiabuu nebigu mithaal usoo qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi hadday gabadhayda faaduma xadi lahayd xadi mayse laakiin haddiiba laga dhigoo laga soo qaado wa gacantaan goyn lahaa buu nabi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh odayaashan marka habhablaynahaye ergeynahaye fadaa'ixdan iyo xumooyinkan xumaatadan dhacaya sababta u ah inay sii jirto waxaan dhihi lahaa idinkana ilaahay ka baqa oo meelaan laga ergeynin ha ka ergeynina oo arrintan dadkii isu taagi lahaabaad tihiin siday u dhammaan lahayd wiilka xunee safiihee samaynayana sidii tilaabo looga qaadi lahaa dadkii laga sugayey baa tihiin ee dulmiga iyo fasaadkaasi dadkii garab istaagi lahaa ama ka ergeyn lahaa ma tihidin dadkii laga filayeyna ma tihidin arrintaa ilaahay uga baqa tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a qodobka shanaadoo inaan tilmaamo u baahan jaraa'imta noocaas oo kale soo noqnoqotay kufsiga dumarka khaasatan waxyaalahaas baaba sababo waxaa ka mid a dhallinyarada oo in badan oo ka mida maandooriyaha iyo draagiska ay ku jiraan qaar badan oo ka mid a waxaa sabab ugu noqda filimada khaldan ee ay daawanayaan janalada khaldan ee ay daawanayaan maalan riwaayadaha khaldan ee ay daawanayaan goobaha baraha bini aadam isugu yimaado mujtamacu ku kulmo ee waxa noocaasoo kale jaraa'imta faafiyo oo ay daawanayaan wixii markay daawadaanna waxay leeyihiin aana baractis garayno
aan markaasi dhaqan gelinoon samayno waa in marka dhallinyarada lagala dagaalamo waxyaalaha noocaas oo kalea draagiska lala dagaalamo maandooriyaha lala dagaalamo dhallinyarada waxyaalaha fasaadinaya jaraa'imta baraya in lala dagaalamo arrintaasina qayb bay xalka ka tahay waxaan doonayaa inaan laba kelimo ugu dambaysiiyo oo aan kelimadaydaasi ku soo khatimo kelimada koobaadii waxa weeye fawaaxishta dhacaysa iyo xumaanta dhacaysa oo ay ugu dambaysay dhacdadii foosha xumayd ee maalinta dhoweed gabdhaha lagu sameeyey ee wiilashu intay isugu tageen kufsadeen haddana mindiyaha iyo tooriyaha la dhaceen oo gabdhihii ay jeexjeexeen haddana muxuu ahaaye xumaantii noocaasoo kale haddana la faafiyey meelo badan oo kaleeto iyadoo kale ay ka dhacday haba ka sakhirnaato laakiin kufsigu meelo fara badan caan buu noqday oo mujtamaca soomaaliga u dego arrinta noocaasoo kale ah waxaan leeyahay markay dhacdaay jariimo weeye saan soo tilmaannay jid loo marana way leedahay qaab lagu xalliyana way leedahay laakiin waxaa khalad labaad oo khaladkii khalad yacni waxa weeye sii saaran ah ama khalad lagu saxoo ka sii daran noqon karaya in arrintii iyada ahayd la geliyo social mediaha la geliyo sawirkii oo sidiisiiya in la soo qaado oo dadka dhexdooda lagu faafiyo isagoo video ah ama isaga oo sawir caadiya in lagu faafiyaayey waa ka qayb qaadasho faaxishadii xumaantii laga qayb qaadanayo arrintaasina arrin saxa ma aha asalka diinteennu waxay qabtaa xumaanii hadday dhacdo ha la asturo ruuxa geystay cuquubadiisa ha la mariyo laakiin xumaantii yaan mujtamaca dhexdiisa lagu wadwadin oo la faafinin arrintaasi arrin khaldan waay saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu yidhi markuu ka hadlayey been abuurkii lagu sameeyey xaaskii nabigeenna sal alla alay wasalam caaisha aayaadkii uu kaga hadlayay rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa dhexdooda ku yimid aayadda rabbi leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi addunya waalaakhira dadka jecel inay xumaantu ay ku faafto mu'miniinta dhexdooda mujtamaca dhexdiisa dadka faafinaya jecel inay ku faafto kuwaasi cadaab xanuun badan bay adduuniya aakhiraba leeyihin kuwa faafinaya lama dhihin laakiin waxaa layidhi kuwa jecel inay ku faafto haddii kuwii jeclaayee qalbiga ka jeclaa layidhi cadaab adduuniya aakharay leeyihiin kii faafinaya ka warran alimaam alxaafid ibnu kathiir caleyh raxmatullah aayadda markuu fasiray wuxuu leeyahay waa edbin saddexaad oo waxaa la edbinayaa dadkii muslimiinta waxaa la leeyahay ninkii hadal xun maqlay oo qalbigiisa uu ku dhacay oo isagu ku hadlay arrinkaa waxaa loo diidan yahay falaa yukhir minhu wayushiicuh wayudiicuh arrinkii yuusan badininoo yuusan sii faafininoo yuusan yacni meelaha yuusan idaacaynin wixii inaad faafisood sii gudbisood meel walba geysaayey xal maaha waa iyaduna waa dariiq khariban waa laanna waxa weye waxaa la rabaa xumaantu inay qarsoontaa la rabaaye in la baahiyo oo la faafiyaayey waa khalad ruuxa faafiyeyna khalad weyn buu galay haddii kuwii khaladka sameeyey ayagu ay soo geliyeenna waa jariimo kaleoo ka sii daran ficlan laakiin ayagu hadday geliyeen ruuxa sii faafiyo dadka u kala diray oo goobaha laysugu yimaada iyo mawaaqicda geliyey isaguna waa ka sii daran yahay hagaaji baa laga yaabaa inuu islaa iska niyad wanaagsanaa oo xumaantan muslimiintu ha ka qiiroodan islaa baa dhici karta laakiin qaabkaa loo tasarufay ma saxsana arrintaana waa in laga waantoomo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka axmed iyo keyrka ay soo saareen min xadiidi thawbaan ayaa rasuulku wuxuu ley sal ly slm laa tu'duu cibaad allah war ilaahay addoommadiisa ha dhibina walaa tucayiruuhum ha ceebaynina walaa tatlubuu cawraatihim dadka mu'miniinta cawradooda iyo ceebtooda ha raaraadinina ha faafinina maxaa yeeley fa innahu man talaba cawrata akhiihi almuslim ruuxa muslimkaee walaalkii ah cawradiisa ruuxii raadiya ceebtiisa raaraadiyoo dabagalaay talaba allaahu cawratahu ilaahay baa cawradiisa raadiya isagana cawradiisa waa la dabageli ceebtiisana waa la dabageli yaa dabagelaya allah tabaaraka wa tacaala xataa yafdaxahu fii beytihi ilaa uu gurigiisa ku fadeexeeyo ilaa gurigaaga ilaahay kugu fadeexeeyo meella ku baxsan mayse gurigaaga gudihiisa xataa lagugu fadeexaynaya saas daraaddeed ceebaha lama faafiyo xumaanta lama faafiyo yacni lama sii wadwado waa la qabtaa waa la asturaa kii waxaa laga hortagaa say ku dhici lahaydna waa laga hortagaa markay dhacdana waa la daaweeyaa
sayna u soo noqonina yacni cuquubaadkaasaa laga dejiyey laakiin wixii in la faahfaafiyo la wadwado oo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهدسك تبارك وتعالى إن وافتشي خير بدن وإلى أن هيسنه شر بدن إلهي إن قرب مريه تبارك وتعالى يا مهدي يا أمان أمانته إسكاله كلمة عن جعلها إن أن كقيب قاته ما أن كتل مامو لباتو مدن السوچرتي وأياه دمنا أد مدين السوكر ليسو وهيستا mujtamaca soomaaliyeed deegaamadiisa kala gadisan arrintaasi waxa weeye waa arrinta la yidhaahdo jariimada kufsiga ama iqtisaabka iyo boobka dumarka la boobo xoog lagaga sinaysto dhibaato loo geysto arrintaas iyo shareecadeenna qiimaha badan iyo diinteenna waxay ka qabto ayaan jeclahay inaan kelimaad kooban ka idhaahdo maxaa yeelay iyada oo ay fara badan tahay runtii khaladaadka iyo dembiyada iyo jaraa'imta la galayo ayay haddana qaarkood sii foolxun yihiin oo ay sii culus yihiin oo ay sii daran yihiin haddaba in dumarka la kufsado oo xoog lagu kufsadaayey waa mas'alo ka mid ah ama arrin ka mida dembiyada waaweyn ee ilaahay uu xarimay tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay waxay ka hor imaanaysaa maqaasidda waaweyn ee shareecada mid ka mida ayay duminaysaa oo halis ku tahay ama mid ka badanba waxaa ka mid a maqaasidda waaweyn maqsadka la yidhaahdo xifdu alcird in sharafka la xifdiyo sharafka oo la xifdiyo wuxuu sabab u yahay in taranka la xifdiyo waana mabda' ka mida mabaadi'da shanta ee waaweyn ee sharaa'icda ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala dhammaanteed ay ilaalisay sidaas daraaddeed kufsigu waa zinadu way sii kala daran tahaye midda labada ruux ee xumaanta samaynaya ay raalli isaga yihiin iyadoo faaxisho dembi weyn ah haddana waxaa ka sii culus markii ruuxa la qasbo oo xoog lagaga sinaysto ama la kufsado maxaa yeelay markaa labada dhinac faaxishadii iyo dembigiina waa dhacay waxaase dheer qaabka uu u dhacay oo inantan ama gabadhan ama haweentan la kufsaday way dulman tahay arrintaasi marka waxa weeyaan waa dembi labanlaaban waana dhaqan gaalo weeye sida qaalibkaa dadka mu'miniinta laguma yaqaano maxaa yeelay sida asalka ruuxa muslimka ah cawradiisana waa qariyaa dadka muslimka ana cawradooda waa asturaa oo xishood baa asal u ah khaasatan wuxuu u danqadaa oo ka danqadaa gabdhaha iyo hablaha iyo dumarka muslimaadka ah ayuu cirdigooda iyo sharafkooda ka danqadaa oo ka dagaalama oo u ilaaliyaa ruuxa mu'minka ah iimaankii ayaa meesha dhaawac soo gaadhayaayoo ruuxu markuu xumaanta samaynayo iimaankii ayaa ka maqan sida nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi uu xadiiska ku tilmaamayo laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min
xilliga uu ruuxu xumaanta iyo faaxishadaas samaynayo iimaankii ma laha bimacnaa hadduu iimaankii joogo wuu xakamayn lahaayo xumaanta waa ka celin lahaa laakiin waxay tilmaamaysaa dhacdadaasi inay dadkaasi anshixii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii iyo iimaankiiba ka maqan yahay xaaladda iyada abuu xadiiska nabigeenu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas daraaddeed arrintaasi waa faaxisha iyo dembi aada u foolxun caqli sharci iyo dhaqan intaba ku foolxun weeye shareecaduna meel adag bay ka istaagtay oo diinteenna ilaan asal waxaa u ah diinteenna akhlaaqda iyo anshaxa wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo cadaaladda iyo dhowrsoonaanta iyo aadamahu xuquuqdiisa la ilaaliyo iyo ammaanka iyo muxuuaha nabadgelyo deganaanshaho la dhowro ayaa asal u ah diinteenna qiimaha badan haddaba qaababka ay shareecadu arrintaa uga jawaabtay runtii ay mowqif adag uga istaagtay waxaa ka mid ah xad adag bay ka dejisay oo raadic ah oo dadka waxyaalahaasi ama hunguriyeynaya ama dhaqankoodu inxiraafay waxyaalaha noocaasa inay ku kacaan doonaya wax zajriya oo hor istaaga oo caabiya oo xad ah ayay shareecadu u samaysay laba xaalay culimmadu u kala qaadaan arrinta kufsiga dumarka la kufsado midi wax weeyaan inuu ninku ama raggu ay kufsadaan dumarka iyagoo marka aan hub isticmaalin oo aan hub yacni wax weeyaan hubku noocu dooni ha ahaado saan u tegi doono haddii uun muxuu ahaayey xoog kaliya si kale ay iyagoon xoog yacni aan hub u isticmaalin marka ay ku kufsadaan mas'aladaasi culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa waajibaya xadka sinada ee shareecadu u dejisay gabadhana waxaa u laasimaya dhibaatadii gaadhay in laga xaalmariyo oo meher bay yeelanaysaa sida ay qabaan alimaamu shaafici imaamu maalik iyo alimaam axmed ibnu xambal xanaabilada madhabka culimmadu u badan yihiin baa sidaasa gabadhii dhibkii gaadhayna in laga xaalmariyo oo meher la siiyo dhibkii la gaadhayna muxuu gaadhayna xuquuqdeeda la bixiyo ninkii dhibkaa ku sameeyey ama rag badan hadday yihiinna markaasi xadka shareecada la mariyo oo haddii guur u horreeyeyna dhagax lagu dilo haddii uusan guur u horreyninna 100 jeedal in markaa lagu dhufto raggiina in halkaa la mariyo miskiintan la qasbay ee la kufsadayna runtii waxay waajib sharciya wey waajib sharci ah wey masaladaa iyada ah cid kasta oo awood lana inay tilaabo ka qaado ciddii aan awood lahaynna ugu yaraan inay qalbiga ka nacdo oo ka gubato waa waajib sharciya wey nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka saxiixulbukhaari ku sugan min xadiidi almugiira sacd ibni cubaada radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu yidhi low ra'aytu rajulan maca imra'ati la darabtu bisayfi hayra musafax aw musafix yacni haddaan ku arki lahaa xaaskayga oo nin haysto oo nin isticmaalayo seef baan ku dhufan lahaa buu yidhi weliba dhinac uguma dhufteene seefta afkeedaan ku dhufan lahaayoo madaxaan u dheerayn lahaa waa nebiga hortii sidaa ka yidhi sal lla lay slm sidaasuu yidhi markaase arrinkaasi nebiga soo gaadhay sal alla lay slm rasuulilaahi ma maqashay hee ninkii la dhihi jiray sacad ibnu cubaada wuxuu leeyahay haddaan xaaskayga nin ku arko qoortaan u casaynaya ma noolaynaya ninkaasi markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam tacjabuuna min hayrati sacdin ma waxaad la yaabteen masayrka iyo ficilada sacad miyaad la yaabteen wallaahi la ana akhyaru minhu anaa ka masayr badan oo ka ficilo badan wallaahu akhyaru minii allana waa iga ficilla badan yahy anuu iga ficilla badan yahy wamin ajli hayrati illaahi xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan alle tabaaraka wa tacaala ficillo uu ka ficiloonayo arrinta noocaasoo kale buu alle tabaaraka wa tacaala arrintaa darteed buu wuxuu u xarimay fawaaxishta dembiyada foosha xun wixii qarsooniya ka muuqdaba marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayradii iyo ficiladii ku bixisay sacad inuu yidhaahdo ninkii reerkayga aan ku arko waan dilayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khayradaa iyadaa waa ammaanay ficiladaa wuu ammaanay masayrka noocaasa wuu ammaanay leanna ruuxu inuu ehelkiisa iyo gabdhihiisa iyo dumarkiisa iyo kuwa muslimiintaba ka qiiroodo waa mas'alo salka ku haysa iimaanka salka ku haysa wey
وحكى مسلم يا بخاري أي صارين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسولك صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة صدح روح ما ننت قيامة إلهي ما فيريو إلا حريساتكم الضيو صدح ذا وحا كمذا العاق والديه روح لبدي سوالد عاق كوه ولبدي سوالد أنبار رقوهين وحا كمذا والمرأة المترجلة هوين إذا الرقة إسوء كيسيسة oo dhaqanka ragga iska raaraadisa oo labiska ragga xidhata haweentaasi ragga ninka iska dhigaysana iyaduna waa talabaad ka saddexaad ee wada youth waa ruuxa dayuuthka way dayuuthku yuu yahay xadiid kala fasirayo wuxuu yiri alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi ama ninka raaliga waa ehelkiisa iyo dadkiisa iyo dumarkiisa xumaanta raaliga uga yani wax weeyaan xumaanta iyo faaxishada iyo zinada iyo dhaqan xumada ruuxa raaliga ka oo reerkiisa iyo ehelkiisa raaliga uga ka ilaahay tabaaraka wa tacaala isagana maalinta qiyaamada ilna xariiseed kuma dayo marka in laga xumaado laga qiiroodo laga ooyo laga xumaado qalbigu ka gubto dadka muslimiinta xumaanta noocaas oo kale soo yeedhaysa oo deegaamadii muslimiinta ka dhacaysay arintaasi waa arrin runtii loo baahan yahay waana arrin ku tusaysa runtii dadnimo fara badan iyo wanaag fara badan inuu ummadda ku jiro ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo siyaadiye waxaa xigto iyadana mudan runtii inaan wax ka tilmaano ruuxa noocaasa ee xumaanta noocaasa ku kacaya xadda uu leeyahay iyo xukumka uu leeyahay iyo ciqaabta uu leeyahay diinta ku leeyahay waan soo tilmaanay arrintaana waa arrin loo baahan yahay inay dadka madaxda iyo maamulada meesha ka taliyay inay isu taagaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xukumkiisa ay fuliyaan iyagana looga dambeeyo arrinta noocaas oo kale inay ku tilaabsadaan oo markay xaqiijiyaan sharciga rabbi tabaaraka wa tacaala inay la tiigsadaan dadka noocaasa si mushkilada loo soo afjaro oo ceebtani ay u afjaranto oo dumarkan akhyaarta ahee muxuu ahaayey qiimaha mudan ee sharafkooda lagu ciyaarayo si loo soo afjaro waa in xukumka ay fuliyaan hadday fulin waayaan oo arrinkaasi madaxda iyo maamuladu ay ka baaqsadaan waxay leeyihiin sida Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah culimo kale waxay leeyihiin ciddii markaa awood leh ee fulin karaysa ayaa markaa fulinaysa wase sharti haddaynan ka dhalanaynin mafsado iyo dhibaato kale oo ka weyn haddayna ka dhalanaynin oo laga baaqsan karo ciddii kale awood leh muslimiinta ka mid ayaa fulinaysa haddii qabaa'isha deegaanka dagaayay ay isku waafaqaan ninkii ay ku cadaato inuu xumaanta noocaasa ku kacay ayaga dhexdoodu inay ku ogaan shareecada ku ogaan oo soo qabtaan oon loo hiilinin oon gadaal la marsanin oo inta la soo dhiibo xadka shareecada uu leeyahay la mariyo koox noocaas oo ka shaqeeya waxaasoo jidka istaago magaalooyinka ku jiro oo dhaqamada noocaas ku jira dadka deegaanka hadday isku waafaqaan oo isku raacaan dadkaasi xaq xukunka shareecada in la mariyo markaana awoodeedii ay leeyihiin way fulaysaa waana sax haddii uu ninkii lahaa xukunkan inuu fuliyo maamulka ah ka gaabsado dadku ayagu waa fulin karaan laakiin waaye waa marka aynan ka dhalanaynin dhibaato kale oo la xakamayn karo arrinta la xakamayn karayo ama dadkii meesha deganaaba isku waafaqsan yihiin oo dhib kaleeto uusan ka imaanaynin marka waa la fulin karayaa oo muxuu ahaay waa loo istaagi karayaa siday culimadu tilmaamayaan waxaan doonayaa intaa kadib inaan ku daro walaalayaal oo aan raaciyo hadalkaas arrinta noocaas oo kale ah ee aadka u foosho xun ee meelo badan ka dhacaysa ee warbaahintu soo gudbinayso ee deegaamo kala gedisan ka dhacayso Soomaalidu ay degto arrinta noocaasi shaki ma laha soo afjarideedu waxay u baahan tahay iyada iyo dhibaatooyin kale oo badan oo ina haystaba waxaynu u baahannahay in aynu xal rasmi u helo su'aashu waxay tahay see loo xallin karaa maxeer dhaqan baa lagu xallin karaa maxeer jajab baa lagu xallin karaa ma xugum gaalo laga soo ergisto laga soo qaatay baa xallin kara ma xallin karayo waxa xallin karaay kow waa qodobadan soo socda inaynu qaadanno mushkiladan inay soo afjaranto midda koobaadi waxa weeyaan ummaddu inay diinteeda u noqoto oo diinteennii aan dabaqno oo aan waxyaalaha noocan oo kale ah ilaahay baa daaweeyo xalliyo afjaree
alle tabaaraka wa tacaala inaan diinkiisii ula laabanoon u celinno waxaana kow ka ah oo xal noqon karaya marka horeba dhicitaankeeda in laga taxadaro. waxayna ku imaan kartaa da'yarta iyo dhallinyarada in lagu tarbiyeeyo cifada, dhowrsoonaanta, xumaanta laga tarbiyeeyo, xadgudubka laga tarbiyeeyo, jaraa'imta iyo dunuubtan iyo gaangisnimada laga tarbiyeeyo, carruurta in lagu tarbiyeeyo wiilal iyo gabdhaba in ay cifada iyo xishoodka iyo dhowrsoonaanta iyo in lagu tarbiyeeyo si ay muxuu ahaayey ay uga badbaadaan xumaanta noocan oo kalea, gabdhihiina uga badbaadaan, wiilashiina ay uga badbaadaan. da'yarta oo la tarbiyeeyo waa qodob marka horeba noqon karaya taxadar iyo ka hortag noqon karaya. waxaa labeeya dhacdooyinka noocan oo kale ah markay dhacaan in shareecada lala tiigsado oo laga daayo xeerjajabka, laga daayo odayeynta, laga daayo ergada, laga daayo garab istaagga, laga daayo in shareecada lala tiigsado la yidhaahdo ilaahay diinkiisu muxuu qabaa. haddii kii wax dile la dili lahaa oo kii sinaystaayey la jeedli lahaa oo kii sidaasoo kale gabdhaha xoog ku kuftooda hoob u isticmaalayay dadka inta la hor keeno qoorta loo casayn lahaa oo qaar inta la soo qaqabto gacmaha iyo lugaha laga jarjari lahaa, arrintu waa dhammaan lahayd. ninna dhiiggiisa kama tillaabsado. laakiin ninka mujrimkaee dembiilaha ee wax qarribaya ee wax dilahaya ee wax kufsanaya ee wax dhacaya markuu og yahay inuu fakan doono oo odaykiisaoo kaabaqabiila garab istaagi doono oo reerkiisa uu gadaal ka mari doono ama uu baxsan doonoba hadduu og yahay ama isagooba nabad qabo magaalada berri iska tamashlayn doono, adeer waxa weeyaan nin walba wuu samayn. nin kastoo safiiha oo diinlaawo ah oo caqlilaawo ah oo khamriye cab ah oo daroogaysta ah oo aan diin iyo akhlaaq midna lahayn, adeer jidkaa u furan markaas wuxuu doonuuna samaynayaa, leanna wuxuu og yahay berri inuu badbaadayo. laakiin hadduu og yahay inuusan badbaadaynin ninna dhiiggiisa kama tillaabsado. macnahana waa macnaha rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka ku tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab. war kuwa caqliga lahow, war kuwa wax garanayow, war kuwa kaska lahow, qisaasta waxaa idinku sugan dhexdeeda nolol baa idinku sugan. qisaasta waxa weeyaan ruuxii wax dilay in la dilo, intuu dadka mariyey in la mariyo, nolol baa idinku sugan. asagii tag mujrimka ahaa laakiin intii ka dambaysay baa noolaanaysa, arrintii baa daawo loo helayaa, khalaa'iq fara badanoo la layn lahaabaa sidaa ku badbaadaysa. marka waxa weeye ka wax dilay dila, ka wax kufsaday ee xoogga ku kufsaday khaarijiya, midka muxuu ahay xoolaha dhacaya soo qabto gacmihiha lugaha jara. sidaasi marka la yidhaahdo arladu aamin bay noqonaysaa, gabadh la kufsan maayo, karaamiya sharaf lagu xadgudbi maayo, dilku waa dhammaanayaa, dhiiggan daadanahaya ee qubanaya waa soo afjarmayaa. ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala waa xalka rasmigaa waay, waana midka laynoo diidan yahay waay. ruux hadduu og yahay in jidkaa la marinayo marnaba ku dhiiran maayo. maslaxada labaadee ku jirtaay waxay tahay ruuxan dembiga galee wasakhaysan ilaahay agtiisana ka fogaaday marka xadkaa la mariyo oo sidaa loo ciqaabo isagana dembi dhaaf bay u tahay. nabigeennu waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi alxuduudu kafaaraat. ruuxa marka xadka shareecada la mariyo dembi dhaaf bay u tahay. waa la dilo aakharuu aaday, xad baa lagu dilay sharci ah, waa loo dembi dhaafi isagiina waa la daahirin, mujtamaciina waa laga daahiriyey. man axsanu min allahi ilaahay tabaaraka wa tacaala walalayaal yaa ka xugum fiican, yaa ka cadaalad fiican, yaa ka daawo fiican rabbi tabaaraka wa tacaala. saas daraaddeed xalku waa in diinta rabbi loo noqdo tabaaraka wa tacaala, arrimaha noocan oo kaleetana loo celiyo ilaahay sharcigiisa tabaaraka wa tacaala iyo wixii uu ka dejiyey. qodobka saddexaanan doonayo inaan tilmaamayo waxa weeye arrimaha noocan oo kale iyo dulmiga socda ee dadka ka dhex socda ee dumarka iyo dadka masaakiinta tabarta yar ku dhacaya ee muxuu ahaayey dhiigga daadanaya, waxaan kadaata markii uu dhaco waa in aan ruuxa daalimka ah aan la isgarab taagin. qabiilka isgarab taagaya, odayga ug doodaya, midka u tafaxaydan, midka doonaya inuu fakado, midka u xamaasaysan, midka u ficilaysan, waa isagoo kale way daalim waay. waa dhiirigelin, xumaantii uu galay baa la dhiirigelinayaa.
arrinta dadka noocaasoo kalena waa mudan yihiin inay ilaahay cadhadiisu ku dhacdo. nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdillaahi bni cumar waa xadiis saxiixa weeye ayaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam man acaana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin lam yazal fii sakhati illaahi xataa yanzic. ruuxii arrin dad isku haysto dulmi ku garab istaaga ruuxii gardarnaa ama ma ahee mid daalim ah oo gardaran u hiiliya oo u kaalmeeya oo dulmigii ugu kaalmeeya, ilaahay cadhadiisa ka zuuli maayo inuu ku dhex sugan yahay ilaa uu arrintaa ka dhex baxo, ilaa uu daayo cadho ilaahay buu ku jira, cadha la saaxiibtay. marka waxa weye daalimka ha garab siinin. cadaaladdu waxa weeyaan sidii nabigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh unsur akhaaka daaliman aw madluuma, kan laga gardaran yahay dhibka loo geystay ha laysgarab taago oo ha loo hiiliyo, kan dhibka geystayna isagana ha loo hiiliyo. ka dhibka geystay hiiladiisu waxa weeyaan xumaanta in laga qabto, isagana taasaa hiilo u ah. kan dhibka loo geystayna hiiladiisu in laysgarab taago madlimadiisiiyo yani wixii ka maqnaayo xuquuqdiisi in loo soo dhiciyo. laakiin haddaad yani waan wada dhalannay, waan isxignaa, isku reer baan nahay, deegaan baan ka soo wada jeednaa, haddaad dhinac gadaal intaad u marsanto u dagaalanto daalim baa tahay, cadho ilaahay baa kugu dhici tabaaraka wa tacaala. ummadda noocaasoo kalea marka ma liibaanto, qabaa'isha noocaasoo kalea ma liibaanaan, deegaamada noocaasoo kalea balaayaa ku habsata, waana tan in badan ina haysata maanta wey. waxaa qodob afraadoon doonayaa inaan ka diga iyadana odayaasha ka ergeynaya ilaahay xuduuddiisa tabaaraka wa tacaala, siday u badan tahay wiil yaroo safiiha ama oday iska safiiha ayaa wuxuu ku dhacayaa khalad buu gelayaa, ummad buu khalad ka gelayaa, dhiig buu daadinayaa, gabdhihii karaamada lahaa buu kufsanayaa, xumaan buu samaynayaa. oday ordahaya oo duub wata oo go' shaala wata oo odaygiis iyo ugaaskii suldaankii reerkaan ahay leh baa soo fadhiisanahayo u shafeecayo erka ka gelaya. daalim weeye kaasina. nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrintaa iyadaa aad buu uga digay. caaisha radiallahu tacaala canhuma waxay leedahay reerkii quraysh la dhihi jiray nabigeennu ka dhashay sal alla alay wasalam ayaa waxaa murug gelisay aada uga murgeen gabadh haweeney reerkaa ka dhalatay oo makhsuumiyad ah oo xadday xatooyay samaysay, waana gabadh reerkaa quraysha ka soo jeedo. gabadhii in gacmaha laga gooyay noqotay ilaa nebiga sal ly slm maxkamaddii bay arrintu timide. reerkii quraysheed waxaa culays ku noqotay ma gabadh reerka ah ayaa maanta tuugnimo gacanta looga goyni, war arrintaa nebiga aynu la hadalno ka erga ka gallo ha laga ergeeyo. markaasaa waxaa la yidhi oo yaa nebiga kala hadli karaa arrintaa iyada. rag baa soo booda waxay yidhahdeen cid kaloo ku dhiiran karta ma jirto usaamo mooyaane, usaamata bni zayd xibu rasuulillaah, nebigu wiilkuu jeclaa ee mawlihiisa ahaa, ninkaa unbaa ku dhiiran karo arrintaa nebiga la soo qaadi karo. usaamaha loo diro. usaamaa nebiga u tegay sal lla alay slm, rasuulka ilaahi reerkii qureysheed gabadhan maqsuumiyadda ee gacanta laga goynaya waxoogaa aada uga murugsan yihiin, bal arrintaasaan ka socday in markaasi sidaa loo xalmariyo. waa haddii falkaasi aan hub loo isticmaalin oo aan hadidaad iyo cagajuglayn iyo hub iyo haddaan loo isticmaalin xukunku sidaasuu noqonaya. haddiise kufsiga loo isticmaalay hub loo isticmaalo oo maalan waxa weeyaan xooggaasi uu la socday in hub loogu cagajugleeyo, hubkaasi siday culimmadu u badan yihiin xataa ul ha noqdo, xataa dhagax ha noqdo, sida uu qabo imaamu shaafici, maalik, xanaabilada, abu yuusuf iyo abu thawr iyo ibnu xasmi, culimo badani siday qabaan waxay leeyihiin xaaladaasi markaa zino way ka koraysaa oo keliyata kufsi uun la sinaystay ma ahee. markaa waxay noqonaysaa masalada la yidhaahdo xiraabada. xiraabadana waxaa la yidhaahdaa in uu ruuxu amniga khalkhal geliyo, jidgooyo sameeyo, uu noqdo ruux mujtamacii iyo deganaanshihii iyo nabaddiisii iyo isu socodkiisii iyo xoolihiisii iyo khatar geliya. kaasuu markaa noqonayaa gaar ahaan marka uu muxuu ahaayey dhaawac iyo dhib la yimaado. arrintaasi marka waxa way ka gedisan tahayoo waxay markaa gelaysaa aayadda qur-aankee alla yidhi tabaaraka wa tacaala innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرابا ليلهدايو وددك جدقوية السمية وددك بوبة وددك هاي نبدقليدي أمنك خلخل قلية وددك حوق يهوبك دمرك كوكو الصدى dadka noocaasoo kale ama magaalo gudaheeda ha ku jireen ama bannaanka uga baxsanaadeene kuwaasi muxaaribiin baa la yidhaahdaaye xukumkii zinada xukum ka khatarsan bay leeyihiin oo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay kuwaasi abaalkoodu waxa weeyaan horta waxaa laga dhigay ilaah iyo rasuulkiisay horta la dagaalamayaan li'anna waxa weeyaan tacaaliimtii diinta ilaahay soo dejiyeyna dagaal bay ku sameeyeen ummaddii tacaaliimtaa haysatay oo muslimka ahaydna dagaal bay ku sameeyeen sidaas daraaddeed allah iyo rasuulkiisay la dagaalameen dhulkana fasaad bay ka shaqaynayaan oo gabdhihii sharafta lahaa iyo hablihii qiimaha lahaa iyo xoolihii iyo nabadgeliyadii iyo naftii bay khatar ku hayaan sidaas daraaddeed dhulkiina fasaad bay ka shaqaynayaan oo wadaan dadka noocaasoo kale ah alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala abaalkoodu waa in la laayo in la daldalo in la googooyo gacmahoodiiyo lugahooda si isdhaafa loo gooyo in muxuu ahay dhulka laga masaafuriyo oo la nafiyo taasi waa abaalka ay adduunka ku leeyihiin aakharana cadaabu weyn bay leeyihiin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed wadaadada qaarkood waxaa isaga khaldama zino laba ruuxoo raalli isagaa ay sameeyeen waa dembi culus waa mid in muxuu ahaayey loos isticmaalo iyadoon hub iyo xoog iyo la isticmaalin haweentii la qabsado masaladaasi waa masalo kale in dumarkii xoog loo isticmaalo hub loo isticmaalo tooriyo loo qaato hub loo qaato sidaa lagu kufsadaayey isku mid maaha masaa-ishaasi way kala culus tahay wayna kala xugum gadisan tahay masaladaa dambe inay sidaas tahayna a'imo badan baa qaba oo xiraabo inay hoos tegayso masaladaasi abaalkooduna uu sidaa yahay in la laayo in la daldalo in gacmaha iyo lugaha si isdhaafa loo jaro arrintaasi kolba tii axkaamta iyada ah dhibkani ku joogsanaya maslaxada u muuqato in la qaato oo la mariyo taa ayaa waxay tahay qolyahaasi xukumkooda waana sida ay ku imaanayso fatwada hay-ada culimada ee u sarreysa sacuudiga almamlaka alcarabiya sacuudiya oo uu ra-iis iyo madax u ahaa asheykhu alcallaama alimaam ibnu baaz caleyh raxmatullah sidan oo kaleeto ayay arrinta go-aan uga soo saareen waxay yidhaahdeen jaraa-imta khadfiga iyo sadwiga yacni wax weeyaan dafidda dumarka la dafayo boobka la boobayo xoogga lagu kufsanayo la qasbayo waxay ka mid tahay min duruubi almuxaaraba ilaahay rasuulkiisaoo lala dagaalamay bay ka mid tahay wasacyi fi l ardi fasaadan dhulkoo fasaad laga shaqeeyay dhexdiisay ka mid tahay oo mudan markaa cuquubada ay aayaddaasi sheegtay aan soo akhrinay oo nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo jidkii iyo dadkiioo la cabsi geliyo arrintaasina waxay leeyihiin farqi ma leh hadday magaalo ka dhacdo hadday tuulo ka dhacdo hadday baadiye ka dhacdo hadday isku mid weyn bay leeyihiin sida xoogga badan aaraada culimmadu ay mas'alada ka qabaan bimacnaa wuxuu ka wadaa waxay ka wadaan waa masalo fiqiyaho culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen marka xukunkaa la siinaya xiraabada waa inay ka dhacdo baadiye iyo jidadka cidladaa iyo meelaha ay ka dhacdo wey qaar baa shardigaa ka dhigay laakiin shardigaasi sida raajixa ah shardi ma aha xataa hadday ka kacaan magaalada dhexdeeda kooxa noocaasa sida kuwii faycali la dhihi jiray iyo kuwa meelahan hadda annagoo noo joogoo la yidhaahdo muxuu ahay nairobi nala joogoo subabawer la yidhaahda iyo kuwaasi gabdhaha magaalooyinka ku kufsanaya ama xoolaha xoogga ku qaadanaya iyo qolyahaasi magaalaha ka dhacday magaaliyo baadiye ma kala leh cumuumka aayadana saasaa laga fahmayaa oo aayaddu ma kala qaadin magaalo iyo baadiye ma kala qaadin bal marka qaarkood say culimmaduna waxaa laga yaabaa dhibaatada magaalada markii lagu sameeyo arrinta dhibaatadu inayba kasii darnaato sidaasi waxaa qaba magaalo iyo inaan baadiye la kala qaadaynin alimaamu shaafici xanaabilada sidoo kale abu thawr waxaa sidoo kale maray awsaaci iyo leyth iyo maalikiyadii daahiriyada madaahibta culimmadu u badan yihiin madhabkaas weeye marka magaalay ka dhacday iyo baadiyay ka dhacday ictibaar ma leh koox
guruub ah oo hubaysan oo gabdhaha kufsanaya oo dadka dhacaya oo amniga khalkhal gelinaya kuwaasi waa muxaaribiin way xiraabada xukunkeeda ayay leeyihiin sidaasi ayaa culimmadu ayay fatwaanayaan masaladana saasay u xoog badan tahay xukunka adag ee dilka ee daldalka ee gacmaha iyo lugaha hala jara ah shareecadu waxay u qaadatay weliba lagu bilaabay inuu ruuxaasi abtirkiisii islaamka xataa laga qaado oo la yidhaahdo ilaahay rasuulkiisuba la dagaalamayba la yidhaahdaayey heerkaa waxaa loo gaadhsiinaya jariimada iyo dembiga culus arrintaa culayskeeda leh waa arrin fool xun waa arrin runtii riqsi leh waa arrin aan runtii waxwey loo gegsan karaynin inay mujtamac muslima dhexdiisa ku soo noqnoqotana waxay tilmaamaysaa fasaad iyo khalad weyn oo ka jira mujtamaca dhexdiisay tilmaamaysaa arrintaa markaan intaa kaga gudbo waxaa xiga oo iyadana qodob kaloo inaan tilmaano mudan maxaarimta muslimiinta iyo sharafkooda iyo gabdhahooda iyo dumarkooda iyo cirdigooda in loo qiiroodo oo laga masayro oo laga dagaalamo oo laga xumaado